Job interview. Waraysi shaqeed. Hello Isabella. Hello Isabella. Thank you so much for coming today month imanshada that imade. You are welcome. Wanduwahay. Ama so do. Now hadartan, why don't you start below say by telling me in a digishecto about kusabsan your employment shaqalen tada background taariikhdeda. Sure, I have been a marketing professional. waxaan ahaa shaqaale oo suuqgeynta for the last 15 years 15 sano ugu dambeeyay. I studied waxaan soo bartay marketing at university jaamacadda suuqgeynta waxaan ku soo bartay and iyo have worked waxaan ku soo shaqeeyay in various marketing roles kaalimo oo suuqgeyn oo kala duwan aan ku soo shaqeeyay. What are some of industries? Waa maxay shirkadaha you have worked in at ku soo shaqeysay? I have worked waxaan ku soo shaqeeyay in telecommunications, isgaarsiinta, financial services, dhaqaalaha, adeega dhaqaalaha, travel iyo socdaalka, and your recruiting iyo qorista. What would you say maxaad ka dhihi lahayd your strengths are hoggaaga? My strengths hoggayga waxay yihiin in creating abuurista systems nidaamyada and iyo processes iyo hor u socodka to get the job done oo shaqada in la sameeyo quickly si dhaqsi ah and iyo manage in lagu controlo contractors qandaraasyada contractors kuwa qandaraaska qaata and iyo staffyada efficiently si karti leh. This tani helps tani waxay koobanaysaa safe in laga badbaadiyo time waqtigana la ilaaliyo and iyo money iyo lacagta for my employers iyo shaqaalahayga. William, what will you say maxaad ka dhihi lahayd you are weaknesses meesha daciif aad ku tahay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Okay, waad mahadsantihiin dhegeyshada aad dhegeysateen. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkeena waxaan kugu dhiirigelin lahayn mar walbo xilqaan waa wihilkaaga mar ala marka adiga aad u baahato YouTube ka soo gal kanaalkeena sifo asharada iyay ku dhaafin ka faa'iideyso mar waliba. waa idin salaamaya dhamaantiinaba. ha ka iloobin haddaad ku cusub tahay kanaalkeena subscribe ka commenting haggiina waay like. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.